madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi uu siiyay idaacadda VOA waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto heshiiska dekedda magaalada Boosaaso oo lagu wareejin lahaa maanta oo ku beegan 1 Oktoobar shirkadda maalgelinaysa iyo waliba isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland iyo qodobo kale. wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayuu u warramay madaxweynuhu waxayna ugu horreyn weydiisay inuu sharaxo heshiiska DP World ay kula wareegayso dekedda magaalada Boosaaso. mudane madaxweyne marka hore ku soo dhawow VOA. waa dhawahay Faadumo, waa mahadsantahay waraysiga ku mahadsantahay. madaxweyne ugu horreyn bilihii ugu dambeeyay waxay dadku aad u hadalhayaan arrimaha dekedda Boosaaso, heshiiska iyo sanooyinka gacanta lagu haynayo iyo habka uu shaqayn doonto. bal adigoo bulshada u sharaxaya xilliga lagu wareejinayo DP World iyo heshiisku sida uu yahay noo faahfaahay. walaashay horta runtii aad baan uga hadalnay barnaamijkan iyo dekedda iyo heshiiska ilaa bishii April 6 markii la soo saxeeray hadda aad baan uga hadlaynay. dadku macluumaad yani fiican way ka haystaan. dadka waxaa jira waxaa maqli jiray si xun wax sheeg sicir ka daran. waxa weeye dad waxaa jira marka iyagu iska shida iyo diidan iyo horumarka dalka cida u shaqeynayaan waxay aan garanaynin. heshiiskani waa heshiis laga galay shirkadda caalamiga ah ilaa P&O oo ka tirsan DP World. waxaana weeye heshiis 30 sano ah dekedda lagu ballaarinayo, lagu casriyeynayo, lagu qalabaynayo. waa la socotaa meesha deked fiican hadda dekedeena alxamdulillah waa ku saxana maalay, laakiin deked aad u yar weeye. in badan iyada kamid ah waa buuxsatay oo hadda lagu shaqeeyaba. iyada laftigeeda structure-keedii iyo wax badan baa iska bedelay. 30 sano la maalayay waxa laga qaadan maan waxa lagu ma darinin. marka ma sii jiri karto runtii xaalad ma sii ahaan karto. waana dekedda kaliya isha kaliya dalka aanu leenahay weeye. marka anagu waxaan ku talagalnay inta goor tahay in laga dadaalo dekedda la ballaariyo, maalgashi la suubiyo, container terminalski iyo sida adduunka u shaqeeyaan dekeddan ay noqoto deked casri ah. meel walba yani badeecada laga keeni karo iyadoo aan la soo baakada lagu soo gurno meel kale aan la soo marinin. marka heshiisku saa weeye. waana horumar Puntland ay gaartay weeye waqtiga iyada ah Soomaaliya wax badan oo ka jira aysan jirin. dekedii hore Soomaaliya uu Talyaanigu ka hirgeliyay gaar ahaan Puntland 185 mitir inay tahay ayaa la sheegay. haddana 450 ayaa lagu kordhinayaa. ma ku haboon tahay in xajmiga dekedda inta laga ballaariyo? horta waxa inta hadda aan loo isticmaalo 150 weeye. marka lagu daro qayb yar oo roorka yiraahdo waa 122 wax badan maaha. hal marka baa gali kara. anaga hadda waxaan u baahanahay deked shaqeynaysa. face-ka hore waxa weeye 450 cusub weeye marka hore. ka bacdina face-ka dambe waxaan maranayaa inay 150 kale oo mitir ay ku jiraan. total mumkin 600 mitir weeye inta dood lagu darayo. waa mashruuc weyn inta hadii la helo lagu daro yani container terminalski iyo de waxyaabaha kala duwan dekedda ay u baahnayd iyo wala waxaan rabnaa inta kaliya maan mustaqbalka in meesha laga sameeyo waxa la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transshipment la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido containerada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo Boosaaso strategic meesha ku taalo awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba. marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo ay qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badeecadooda ku kala wareegsadaan. marka anagu mustaqbalka iyo visionka iyo aragtida aan kale leenahay Boosaaso iyo waxa laga hadlayo xisla ma madaxweyne waxa jirtay in la qorsheynayay in la dumiyo guryaha ka agdhow dekedda magaalada Boosaaso, balse hadda waa la joojiyay. maxaa iska bedelay qorshahaas? anagu ma rabno cidna inaanu shideyno oo shaqaaqeyno. meesha waxa weeye horumar baan ka hadlaynaa. horumarkaas marka inuu keeno dib kala keeno ma aan rabno. waxaan ka fogaanaynaa marka shidooyinka iyo dhibta in la yareeyo. waxa la yiraahdo wanaaga dekedda in la arko laakiin aysan shido soo kordhin. marka taas ayaa keenaysa inaan dadka u turno ama ha noqdo dadka dekedda agaarkeeda degan, ama ha noqdo kalluumaysatada dekedda ku dhex nool, ama ha noqoto ganacsatada iyo shacbigeena. anagu waxaan rabnaa marka dekedna ay dhisanto, dadkana iyo shidada la iman kartana la yareeyo. toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray ganacsato iyo odayaal shir jiraad ku qabtay magaalada Boosaaso oo sheegay dhaqaalaha dekedda uu dhisi karo deked ka weyn inta 450 ka ee aad shaaciseen. waxa kale oo wararka suuqa ay sheegayaan
in boqolkiiba 27 ay dhaqaalaha ku yeelan doonto Ethiopia arrimaha noocaas ah maxaa ka jira hadeer waa sax kama jiraan Ethiopia wax ku yeelanaysa iyo heshiisku waa cadi yahay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa bahaya marmana heshiiska meelada Ethiopia hadda heshiis lagu la galay in boqoltaas yeelanaysa ma jira waa propagandada waxaan ku sheegay way dadkan sida wuxuu sheegay taasna de wax mantiqa oo sax ma aha midda kale waxa lagu celceliyaa ganacsatada hadashay ganacsatada halkan igu yimaadeen waan u waramay waan ku qanceen waxa aan siinay ganacsatada hadashay eedeed ma jirto walaashay ganacsatada dalka Puntland ay leedahay waa la yaqaanaa meel ay ka hadleen oo dadka ku caaraqeen oo ka horreeyeen ma jiro waa soo dhaweeyay dhamaantood sababtoo waxa weeyaan cid oo horeysay ka faa'iideysanaysa waa iyaga cid dhibta ku qabta waa iyaga cid maraakiibtooda saddex bilo ay taagantahay dabaraj ku socda waa iyaga waa soo dhaweeyeen wax shidaan ka maqleen ma jirto dhowrka qof oo qeylqeylinaya oo leeyahay waa nabadoono anigu ma ogin nabadoon sax oo hadlay runtii laga yaabaa ayaamii horeysay dad la khalday inay jiraan laakiin shakhsiyaadka hadlaya qeylinaya kulli waa taqaanaa 1 iyo 2 3 oo taqaanaa nabadoonana ma ganacsatana maaha dad wax oo shaqaha ku leeyahay dadkaasi oo hawlaha uga maaragtay ka gashay oo iyaga qofaysan ma ay jiraan sababtoo ganacsatana maaha dad bulshada matala oo dhexdeeda ku leh nufuudna ma aha marka kuwaas hadii la yiraahdo warkooda maalba la buumburiyo la wadwado waxa weeye mushkilad weey waxa jira cabsi ay ka qabaan ganacsatada waaweyn in cashuurta dekada Boosaaso ay kororto halka xamaalka iyo ganacsatada yaryarna ay cabsi ka qabaan inay meesha ka baxaan horta waxa weeye dadka meesha ka ganacsan jiray qof walba siisu waa ganacsanaya ama ha ahaado mid ganacsi yar leh ama ha noqdo mid ganacsi dhexe leh dekadu waa u furan tahay dadkana waa u dhex cid gaar ah u xirnaanaysa ma jirto kamina gaar loo xiriyaan aad walaashay ma ay jiraan marka dadku sida awal uga ganacsan jireen dekadooda u ahayd maamulka loo hagaajiyo yaani socodka shaqada oo wanaagsanaata anagu waxaan rabnaa badiil wanaagsan wixii meesha ka jiray ama ha noqdo dhisme ama ha noqdo maamul ama ha noqdo nabadgelyo security waxaan rabnaa wax ka wanaagsan wixii meesha ka jiray in dadka la siiyo oo ay ku qancaan ayaanu ka shaqeynayna dawladda Talyaaniga ayaa horay Soomaaliya waxa ay ugu deeqday mashaariic ay kamid yihiin dekada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso sidoo kale dadku waxay madaxweyne ugu dareynayeen in ay helaan deeq lagu balaariyo dekada Boosaaso halka muddo 30 sano ah lagu wareejinayo dawlad ajnabi ah waxa weeye 30 sano waqti aad u yar weey marka la eego waxa la yiraahdo waqtiga taariikhiga waxa aad u yar weey maalka la gelinayo meesha 336 milyan dollar weey dekadan dadka waxay qaadanayaan waa board chargeska waxa weeye waxa la yaani fiiga iyo khidmada la saaro gaadiidka imaanaya iyo wax la mid ah weeye marka la eego dhaqaalaha la gelinayo 30 sano waqti aad u yar weeye waa wax standard adduunka ka jira weeye ma garan madaxweyne ma laga yaabaa in cashuurta DB World markii la wareegto cashuurtu kor u kacdo waxyaabo qayb haweenka ana cashuurta anaga qaadana cashuurta dawladda qaadata oo customiska wax iska bedelayay ma jiraan dawladda Puntland baa iska leh cashuurna halkan uma qaadayaan waxay qaadayaan waxa weeye on board charges kaas ma garata wixii de improvement oo wanaajina oo ay sameeyaan bay wax ku qaadanayaan marka saas weeyaan waxa weeye ma waa kala duwan yihiin cashuurta dawliga iyo boorsaska wax aad kala duwan maantay oo tahay 1 Oktoobar 2017 ee ku beegan maantay waxa la qorsheynayay sida heshiisku ahaa in dekada Boosaaso lagu wareejiyo shirkadda DB World maxaa sababay in dib u dhac ku yimaado dib ma laha anigu kule qorshe waxaan qorsheysnay maanta ilaa galabta in hawshaasi ay dhamaato walici kartaa cilad farsamo awgeed in wax dib u dhac walici kartaa laakiin anigu hadda waxaan ogahay ma aha waxa weeye waa rajaynaa sida loogu talagalay u socoto bilihii u dambeeyay waxa jiray jahwareer dhinaca lacagta shilin Soomaaliga ah oo goobaha ganacsiga la diiday lacagta duuga ah arinta maxaa ka qabateen arintan waxa xalinay si wanaagsan baan waxa la sabatay shidana waxa abuuray shabaab markii diideen lacagtii laga qaadanay gobolada dhexe waxa dhacay marka dadkaas maadaama shilinka la qaadanayo shilinkii Puntland waxa wixii lacag jirtay gobolada dhexe oo dhan lacag duug ah in fuustooyin lagu soo raro iyo andamiilayaal lagu soo daabulo Puntland waxaas oo lacag oo gobolada dhexe laga soo daabulayo oo wala aan lacag fiican ahayn oo
dadku ma qaadan karaan oo dee waa ay diideen lacagtaasaan u sheegay sideedaba waxa weeye waxaa ku shaqaysa kalsooni dadku inay lacag ku qabaan waxa in lacag tahay haddii dadku ay diidaan lacag ma noqonayso xaashaas kama duwana marka suuqa ayaa si caadi isu xalliyey dowladduna dee maadaama legal tender uu ahaa muddo wax isku dayeynay inaan ku qancino dadka lacagta in la qaato dadka lacagta qaadan waaye dabcan marka waxaa weeye tii ayagu ay rabeen hadda ay qaataan dowladdu saas ay ku shaqaysaa markaad tagto goobaha lacagta lagu bedelo sarifka qalaad ee magaalada Boosaaso waxaad arkaysaa lacag cusub oo taal meelaha qaybtood dadkuna waxay dananayaan lacagta cusub xagee inoo ka timaada lacagta awalba jirtay weeye Puntland taale weeyaan ma waxaan ka hadlaynaa lacag cusub ciidamadu mararka qaybtood waxay qaban jireen lacag cusub oo la dhaho meelo Puntland ka baxsan baa lagu soo daabacaa laakiin iminka waxa kaliya oo la qabtaa lacagta duuga haddana markaad suuqyada dhex marto waxaad arkaysaa lacag cusub oo baakadaheedu ku jirta oo aad moodo hadda in la soo saaray marka xagee bay lacagtaas inoo ka timaadaa madaxweyne lacagtaas lacagta legal tenderka oo Puntland ka shaqeysa weeyaan marka ma dawladda dhexaad daabacda lacagtaasi waa lacagta legal tenderka ah oo Puntland ay leedahay Puntland ka shaqeysa weeyaan marka Puntland ay leedahay kooda Puntland baa daabacda marka intaas ku ekaysiinaya lacagtaas lacag legal tender oo Puntland ay leedahay weeyaan toddobaadyadan waxaa magaalada Boosaaso ka jira in ciidamadu dhammaan wadooyinka ciidamo technical wata ciidamo kale ay aad u gaaf wareegayaan maxaa ka jira wax dhibaato ma jiraan waxa weeye anagu magaaladani waxaan aad uga ilaalinaynaa waxa weeye nabadgelyo xumo iyo shabaab iyo sharwadayaal in laga ilaaliyo halkan markaan imid ana isugu yeeray ciidamada in magaalada gudaheeda laga hawlgalo magaalada banaankeeda laga hawlgalo waa la xiriir waxa weeye nabadgelyada iyo amniga wax shaqo ku leh hawshan hadda aan ka hadlayno ma aha sida hadda la soo saarayaan wax jira ma aha waxa weeye yani baaritaankii awalba dhici jiray magaalooyinka lagu soo bin jiray lagu tafriidi jiray wixii shidaahu jirana aanu ku ogaan jirno laga qaban jiray wey mudana madaxweyne ma jirto hubka dhagis ay dawladdu ku dhawaaqday waxa jira in meheradaha ama bangiyada qaybtood ama guriyaha qaybtood dadku hubaysan yihiin in hub laga soo saaray marka ma hubka dhagis ba wax hub dhagis la yiraahdo ma ay jirto waxa weeye qofkii da sharci hub yani waxaan ogahay in qoryaha la soo qabtana xirada booliiska la keeno qofku uu yimaado la diiwaan geliyo ka bacdina loo celiyo marka ma jirto yani hubka dhigis hadda anagu aan ku dhawaaqnay oo caam oo dalka dhan laga soo binayahay ma ay jiraan laakiin waxa weeye qoriga shabaabkuna waa wataa ninka askarigana waa wataa markii aan ogaano weeye qorigan ma askari baale ma qof ganacsataa leh ma shabaab baale ma qof kale shido wata ayaa leh waa la kala ogaanayaa stationka booliiska la geeyaa qoryaha waa kala socotaa qofku sharci u leeyahay waa yimaada waa loo register gareeyaa waa loo celiyaa wax ridaa u jira ma jiraan 27 bishii December ee aynu soo dhaafnay 5 maamul goboleed oo ay Puntland ka mid tahay waxa ay soo saareen qoraal ay ku diidan yihiin xilka qaadista madaxweynaha Galmudug oo baarlamaanku uu ka qaaday waxaana dawladda federaalka ah aad ku eedeyseen inay arrinkan lug leedahay waxaad kaloo ku dhawaaqdeen inaad isugu imaan doontaan shir magaalada Kismaayo shirkaas muxuu ku saabsan yahay shirkaas waxa ku dhawaaqay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe jadiisuna waxay tahay in la isu yimaado la tashado dawlad goboleedyadu dabcan waxay leeyihiin wax ay wadaagaan oo ka dhaxeeya jira marka loo eego dawladda dhexe marka dabcan waa ra'yi wanaagsan in la isu yimaado la wada hadlo wax naga dhaxeeya aanu ka wada hadalno waxa dawladda dhexe dawlad goboleedka ka dhaxeeyana laga wada hadlo waa wax loo baahan yahay weeye marka shirkiisa isaa ku dhawaaqa jadiidun saas weeye arrintan ku saabsan arrintan aad leedahay xilka qaadista anagu waxaan jeclayn runtii arrinta Galmudug si wanaagsan oo sida hadda loo maareeyay ka duwan in loo maareeyo dadka isu soo dhaweeyo maamulkaas maamul cusub weeye aan la shidaynin maamul u baahan inuu dhismo weeye baarlamaankiisii iyo xubnihiisii kale maxaa la yiraahdaa dawliga ahaa institutionska haykalkii dawladnimo la dhiso laakiin waxaan moodaa si aan yani ka fiirsi lahayn runtii in loogu degdegay marka anaga waxaan ku baaqaynaa waxa weeye maamulkaasi in isaga la isu daayo ayagoo ay heshiiyaan hawshoodana si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay ku dhamaystaan qoraalka waxa ku jiray in lagu cambaareynayo waxaad ku tilmaanteen faragelin ee dawladda federaalka ah waxaad soo noqotay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aqoon baad u leedahay federaalka iyo maamul goboleedyada arrinkaasi saameyn ku yeelan karaa xiriirka
maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dawladda federaalka waxay ku wanaagsan tahay iyo waxay sax ku tahay in lagu taageero weeye haddii wax khalad ay jiraan oo aan isleenahay way ku qaldan tahayna in la tilmaamo meesha ku jirta anigu waxaan rabnaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu si wanaagsan dalka loogu shaqeeyo masiirka Soomaaliya laga wada shaqeeyo yani runtii yani isku doon baan u saaranahay isku meel baan u soconaa isku mustaqbal baan nahay marka in la wada tashado waxyaalaha masiiriga aan iska weydiiyo itijaah fiican la wada qaato umaan ku tareynaa mooyaane hadda ma aha ay annaga oo ka soo horjeeda dawladda federaalka ah dawladda federaalka ka soo horjeeda dawlad goboleedyada ma aha as against them wax la oran jiray yani ma aha waxa weeye in aan isku aragti noqono isku jeedo noqono isku meel u soconno mustaqbalka iyo danta Soomaaliya laga wada shaqeeyo intaas weeye shantiina maamul goboleed ee ay Puntland ka mid tahay waxa aad ku baaqdeen in shir degdeg ah isugu timaadaan magaalada Kismaayo ma ku qurux badnaan lahayd in aad Muqdisho tagtaan oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aad wada hadal kala yeelataan arrimaha aad wax ka tabanaysaan laga wada hadlayaa waan la isku imaanayaa hadda oo dib hadda weyn aan ogahayna ma ay jiraan marka arintaas way socotaa in si wanaagsan arintan loo wajaho leeseen la yimaado weerar dhowr ayaa ka dhacay bilihii la soo dhaafay af urur hadda waa sidee xaalku xaaladda aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaato ah oo jira weyn Puntland ka jiraan ma jiraan dabcan waan ka hadlayaa hawshan ku saabsan af urur oo ku ay fursad bay raadinayaan in ugu gaadaan fursad bay ka helaan af urur laakiin ciidamadeedu meel bay joogaan waa diyaar bi u yihiin dadka inay difaacaan shabaab iyo anaguna ma wada noolaan doono runtii rudadan ku sheego mana si joogayaan Puntland taasan ku sheegaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay dhawaan dhiibtay qalbi dhagax Puntland kama aysan hadlin waxa ka hadlay wasiir dawle xilka laga qaaday muxuu yahay mowqifka ku aadan ee Puntland arrinkaas fara u sheegay anaga arrin khusaysa ma aha aan shaqo ku leenahay ma jirto marka waxaan khusay u baan ka hadli karaan oo nama khusaysa arrinta iyada